qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas qabayna sidaad ku aragteen war-saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ag taagan oo ku baxay amarka ra-iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war-saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la gelay oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqaya inaan soo dhaweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeena inay maalgashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeedna ay u dhimatay inay geli karaan heshiis noocaas ilaalinta midnimada xorriyadda iyo ilaalinta ammaanada lagu dhiibay ummadda soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo la saaro waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalino ammaanada ay ummadda soomaaliyeed loo dhiibay madaxnimadu waxay tahay inaad shacabka soomaaliyeed soo hor istaagto aad u sheegto waxa jira marka ay jiraan arrin ay ka mudugudaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed annagu waxaan u dhaaranay idinka inaan difaac waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinkeedin difaacayno qof walboo soomaaliyeed laakiin waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo midnimada iyo xorriyadda ummadda soomaaliyeed qof walboo soomaaliyeed waxaa laga rabaa inuu qaybtiisa qaato qof walboo soomaaliyeed waxaa la rabaa inuu soo istaago dowladnimadii soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ay maraysaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka seexaan waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa sax dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo marinta hay-adaha federaalka oo loo odmaday oo ku salaysan dastuurkeena waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayno sharciga